like share comment kambalalka dhaysi. Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta nala socoto muuqaalkeena waxaan ku dhiirigelin doonaa ardayda Soomaaliyeed ee imtixaanka u fariisan doonto maalinta Sabtida oo berri ah oo ay saacado inaga xigta 18 July 2020 marka hore waxaan la ka baryaynaa inuu imtixaanka Ilaahay idinku baasiyo aad noqotaan ardayda gasho kaalimaha ugu wanaagsan waxaad gali doontaa kaalinta koobaad insha Allah haddii aadan hadda galina berri ayaad gali doontaa hadduu alla yiraahdo runtii dadaalkii ay soo bixiyeen macallimiintii tiina maamulkiina iyo bahda Somteach waxaan filayaa in laga dareemi doono sanadkan oo sanadkan uu noqon doono sanad ka duwan sanadihii tagay sababtoo ah aad bay u ballaaran tahay dadaalkii iyo juhdigii aan idin gelinay inkastoo marxalad aad soo marteen xaalad coronavirus oo jiray oo markaas waxbarashadii ay gaab gashay haddana waxaan filayaa inaad aad u dadaasheen waxaan filayaa inaad hesheen past exam imtixaanaadkii hore ee la soo dhaafay dabcan imtixaanaadkaas waa international oo ardayga mar kasta wuu raadiyaa boqolkiiba 90 imtixaanaadka aad gali doontid waxaan filayaa inay ka iman doonaan imtixaankii horey aad u soo gashay oo qaarkood Somteach ay idin sharaxday iskuulaadkiina maamulkiina macallimiintiina suurtagal ay tahay inay idin la wadaageen waxaan rabaa inaan idinku booriyo inaad imtixaankan si fiican ugu diyaar garowdaan last minute ka aad haysaan xitaa imtixaanaadkii hore eegtaan oo fiirsan waxaan filayaa inaad baasi doontid taa niyada gashay insha Allah sanadkan ay yaraan doonto ardayda dhacdo waxaan jecelnahay inaad noqotid ardayga dalkan wax ka bedelo quality leh waxaan dareemayaa ardayda Soomaaliyeed inay jecel yihiin dadka ku caawiyo in ay qishan waxaan ku sheegayaa qofka ku fududeeya ama kugu caawiyo qish waxa uu la dagaalamay oo uu dilay mustaqbalkaaga waxa uu la dagaalamay naftaada ayuu la dagaalamay waa inaad taas ogaataan haddii maanta aad ku baasid qish berri aad qish shaqo ku heshid berri aad qish madaxweynimo ku noqotid dalka wuxuu noqonayaa dad u eg qish iyo wax foolxun ayuu noqonayaa sidaas daradeed ku tasho wixii lagu soo baray juhdigii lagu bixiyay ee macallimiintaada maamulkaaga iyo bahda Somteach ay kugu bixiyeen inaad kamira dhalisid oo aad ka ku baastid oo aad xoog saartid wixii aan ku soo barnay ogowna berri ayaad arki maskaxda aad naftaada berri ayaad naftaada ciqaabi doontaa oo dhihi doontaa maxaan qish ugu soo baasay waad amaani doontaa mar dhow marka maalmaha ugu horeyso macallinka ma la dhihi karo qofka dulliga ah ee ku fududeeyay qishka dulli ayaa la dhihi karaa not macallin is not a teacher macallin maan qof ku fududeeyo qish ka shaqeeya inaad qish ku baasid kaas macallin lama dhihi karo waa dulligaas marka ugu horeyso waad amaani doontaa marka dambe adiga caayi doontid oo dhihi doontid mid miskiin ah oo wax isku mafalaah ayaa imtixaanka ilaalinay waardiinay haddii daawadaha muuqaalkan uu ku jiro macallin rabana inuu ardayga qish u fududeeyo fadlan waxaan ku leeyahay ka joog please stop fadlan joog waxa aad halaynaysid wax aad mustaqbalkooda ku dheelaysid waa arday Soomaaliyeed oo walaalka ka soo qaad wiilka aad dhashay ma jeclid in qish uu ku baaso waxaad jeceshahay in uu arday dhisan noqdo oo uu baaso oo waxbarashadiisa ku baaso waad baasi doontaa intee ordaysaa waxaa laga yaabaa arday 14 sano jira 15 sano jira inuu ka mid yahay ardayda u fariisanaysa imtixaanka oo yar tahay orodka uguma jiro dadaal haddii nasiibkaaga uu noqdo inaad dhacdidna ku laabo sida quraanjada oo kale noqo quraanjada fiiri
waxay fuushaa meel ay adag tahay in la fuulo way isku daydaa way fuushaa way soo noqotaa way soo dhacdaa haddana way fuushaa way soo dhacdaa okay ugu dambeyn way fuushaa ka waran haddii quraanjadaas aan inta qaadno saarno halkii ay fuuli lahayd aan saarno ku caawinno waxaana shaki ku jirin quraanjadaas inuu ka dhumi doono hadhow socodka so adigana waxaa kaa dhumi doona socodka aad hiigsanaysid waxbarashadaada mustaqbalka aad u hiigsanaysid waxaad isku hadlayn doontaa jaamacad inaad qish ku baasid baajkaaga masterkaaga olof daraasaadka ku dhiman aad qish ku baasid oo lagu shaqeeyo dan hadhowna waxaad noqon doontaa caag maran oo meel yaala ayaad noqon doontaa oona waxba tarayn ayaad noqon doontaa waxaad tahay mustaqbalkii dalkan waxaad tahay qofkii berri ka bedeli lahaa dalkan xaaladda uu hadda ku jiro waxaa la rabaa beri dambo iyo beri kasii dambe inaad mar kasta diyaar u tahay inaad imtixaan geshid noocu doonaba ha noqdeen haddii hadda lagu gashana taasi diyaar uma noqon doontin okay taas waxaa waaye waa waano intaas ka soke imtixaanka kolley waxaa suurtagal in warqada A4 lagu keeno ama waxaa suurtagal in lagu keeno warqad booklet ah طبعا booklet-kana waxaa suurtagal ah in lagu yiraahdo ku qor macluumaad marka hore dabcan roll number-kaaga iyo macluumaadkaaga waa inaad ku qortaa halka lagu yiri ku qor oo aad akhrisaa waxa ku qoran meesha waxa ku qoran then marka aad qoraalka qoraysidna waa in qoraalkaaga aad kala dhigtaa fartaada ay noqotaa far toosan oo aanan darbiyada garaacaynin farta darbiyada iisan aadin xaanshada darbiyadeeda ka ilaali farta oo waxa waaye dhexda fartaada ku qor sadarkana yeysan ka bixin yeysan kor fuulin hoosna yeysan u fuulin sidoo kale marka aad ka shaqaynaysid su'aal oo tusaale ay tahay su'aal waxaan true and false waaye طبعا نمبر كسو قادات كشغين نمبر 1 horteedan hadii true ahayd t ku qor hadii false ahayd ku qor 3 sorry t iyo f hal soo boodin waxa suurtagal ah in lagu dhahay hadii true ay tahay y ku qor hadii false ay tahayna z ku qor marka fiiri instruction ka meesha ku qoran kaas ayaa ku hagi doono hadii multiple choice ay tahay oo la wareejinayana number ka soo qaado number 1 horteeda ka bax hadii b ahayd b-da gooba geli oo wareeji fadlan instruction-ka raac taas ayaa muhiim ah imtixaanka intaadan aadin diyaar garow oo ku dhamaadaan agabkii aad imtixaan ku gali lahayd sida qalinkii aad wax ku tirtiri lahayd haddii aad khaldantid imtixaanka intaadan gelinna isku day in aad gashid suuliga si adiga oo naftaada relax ama raaxad dareema imtixaanka aad gashid imtixaankana goobta imtixaanka lagu galayana 30 daqiiqo ka hor fadlan tag oo si aad u ogaatid jawiga iyo waxa goobta imtixaanka ka dhacaya si aad u indhaysid xawaasha iyo xaaladda markaas taagan ha noqon qofka ugu dambeeyo diyaar garowgaagana ha noqdo 100% ha noqdo soo waxaan ka sugaynaa inaad imtixaanka ku baastid waxaan ka sugaynaa inaad number 1 noqotid ha niyada gasho hadda inaad number 1 noqon doontid number 1 aad noqon doontid insha Allah waad noqon doontaa haddii aad hadda noqonna berri ayaad noqon doontaa waxaad tahay mustaqbalkii waxaad tahay ardaygii aan sugaynay waxaad tahay muraayadii ay isku fiirin lahaayeen ardayda ka dambeyso haddii aan nahay Somteach waxaan u taaganahay caawinta idinka caawinta ardada form 4 geli doona sanadka soo socota kuwa geli doona sanadka ku xiga kuwa geli doona sanadka ku xiga kuwa koobaadka labaad iyo saddexaad dhammaan bahda waxbarashada guud ahaan waxaan idin leeyahay guul ayaa idin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya waxa idin sheegaa segsegnimaa la iska dhaafo Somteach waa cilmi la soo duuduubi haddaa idin sheegi waa lagu soo shubay